وحاجرتي أو أتكاد يدنا سكرة خصومة سياسية سياسة دهان خلافكي وحب هذا واجي أبو بكر الصديق خارو حاجرك سهر جدي أبو بكر وأركمان ممكن لودي وعلي بن أبي طالب وحي بلاون حديث إن أبوران ولو أمانة علي بن أبي طالب خليها بكريين تروح بلاون حديث ولو أمانة أصحابتي أبو بكر يوحل منها وحي بلاون حديث إن لك لا ألفته سياسة دي ويسوس عطي مرة كده مسوسي بدن يستطيع وحال جار عصري يعني خليه معركتي أمويين إن بلاوته إن معركتي يعني أحاديث أو رشاك يعني أدبرتها حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا ونال در المعالي ألف صلى الله باعث الآمال في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله جل وعلا maanta oo maalin khamiisa taariikhda islaamkuna ay marayso 2 bisha Dhulhijja 1438 oo waafaqsan 24 bisha 8 2017 waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala kelimad kooban oo ku saabsan difaaca asxaabta rasuulka رضي الله عنه مناسبات باركينتي inaynu wax weeyaan ka hadalno oo sideedaba sidaad ula socotaan dadka inta wax akhrida ay la socoto ama guud ahaan baynu ognahay waxaa jira siraac bayna alxaq walbaatil baritan iyo lagdan ka dhaxeeya xaq iyo baatil وإن مدانا وحوية سوجري سينجري دونا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لولا ككرد حيا حق يا باطل كنا حالة قرى تمل لازمه كل بشكل يصور بو يراني قاوبك ودران وقنا خطرت بدن وحاكم ده إن وحوية مركا لبيك صدو أصحاب الرسول إن لبيك صدو رضي الله عنهم دين تودنا للدره دبتنا وحوي يجا وحلا تنقيسيه dadka marka loo muujiyo suurad khaldan dadka waxay marka laga siiyo taasina waxay keenaysaa in dadku ay ku kalsoonaan waayaan diintooda iyo waxa ay inoo soo naqlinayaan haddii marka hadda asxaabta meesha laga saaro diinta xabaarsaneen la durana taasi waxay albaabka u xaadaysaa in wax badan oo sunnadii rasuulka iyo diintiiba la waayo marka waxay hadaf ka dhiganayaan asxaabta waliba kuwada muxaddiisiinta axaadiista faraha badan soo gudbisay ayay weerarayaan taabiciintii ardada asxaabtii bay ku xisiinayaan sidaa u wad ilaa waxay min hada culimada ay isleeyihiin sunnada rasuulka kaalin kaga jiraan ay markaa ay beegsanayaan wax markaa soo jirin way taasi waa sidaas way iyadoo dadtaas ay jirto waxa runtii barihan saad la socotaan jiray niman wax way markaa Soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga oo surursaday shabakadna samaystay leeyahay maandoon oo xaqiiqatan naardoon ah dadku maandoon bay yiraahdaan anigu waxaan u aqaanaa naardoon way nimankaas oo isbahaystay oo
weysadooda usoo qoystay sidii ay islaamka u baabin lahaayeen sunnada rasuulkana ay waxyeello weyn ay u gaadhsiin lahaayeen. sidaas daraaddeed baa waxay sameeyaan shubahaadkii ay ka tegeen nimankii mustashriqiinta la odhan jiray iyo shiicada, adigu cumuuman acdaada islaamka wixii ay islaamka ka yidhaahdeen intay soo urursadaan ayuunbay intaasunbay soo turjumaanoon, iyagoo xusuba lama imanba oo wixii jiri jiray ee weligeedba soo jirtay ayuunbay noo af soomaaliyaan. markaasaa dad fara badan oo aan dee wax weeyaan waxba akhriin ama carabiga aanay isku wanaagsanayn baa markay dhegaystaan bay yaabaya odhanaya warwa kuwani waaba cajiiba waaba culime marka haddaba nimankaas ayaa jiray oo beryahan baa asxaabta saarnaa guud ahaan weeye iyadoo la kala reebeyn ba wax weeya meel buu qaabilsay. qaar baa asxaabta qaabilsan, sunnada waxaan tashkiikinteeda qaabilsan, qaar baa wax weeyaan culimada soomaaliyeed kuwooda maaragtay ee sunnada u khidmeeya ku maqan, qaar baa xanaabilada loo xil saaray, qaar baa Abu Hurayra loo xil saaray. yacni waa ciidamo weyn, waa junuud ibliis oo wax weeya markaa qolo waliba dhan wax weeyaan layidhi ka soo gala. marka kelimadda munaasabadaas ayaa keentay. weliba waxaynu si gooniya uga warrami doonaa uun aflagaadayda ninka kashki la yidhaahdo uu waxa markaa asxaabta u geystay, iyadoo ay qoladaasoo dhan ay ka sameeyeen ayaa haddana waxaa muuqata inuu yahay wadaadka ugu maartay nagnagta badan, iyaguna ay sheekhaba ka dhigteen oo ay aad u tarwiijiyaan hadalladiisa iyo wax muuqaaladiisa. kaas ayaynu markaa insha allahu tacaala wax ka odhan doona aflagaadada u geystay asxaabta rasuulka radia allahu canhu ajmaciin. kelmadeenna baxhi ama wax weeye raddi mufasal ah ma noqon doonto. waxaynugu talagalnay dhiig joojin, dhiigga asxaabta ka qubanaya iyo dhaawaca loo geystay ayaa rabnaa inu kabno insha allahu tacaala. in kaana lilxayaati baqiya, haddii aynu sii noolaano waqtigii noo saamaxo waxaan isku dayi doonaa si dhammaystiran in aan mar wax weeye marka uga waranno. kelmaddan waxay noogu qaybsami doontaa, horta waynu mushaarakeynanaa aniga iyo alakh sheekh mukhtaar cismaan baa wax weeye markaa mushaarakeyn doona. anigu waxaan qaadan doonaa kelmadda hore oo ku saabsan maadaama si guud asxaabta u aflagaaday cadaaladda guud ee asxaabta ayaan doonaya inaan ka warramo. kadibna Mucaawiya bin Abi Sufyaan iyo asxaab kale oo aflagaadeeyay baan wax weeye markaa ka warrami doonaa. saxaabiga madluumka Abu Hurayra oo dagaalka ugu ba'an ama wax weeyaan isaga lagu qaaday xamlada ugu daran waxaa ka warrami doonaa sheekh mukhtaar baa insha allahu tacaala inooga warrami doona. haddaynu markaa waxay iska bilaabanno si aad ku arki doontaan fideogiisaba kashki ayaa wuxuu yidhi isagoo saxaabada dhammaantood waxay markaa aflagaadeynayay ayaa wuxuu yidhi waqtigii Abubakar la dooranayay ayay dadku kala qaybsameen, labay u kala qaybsameen, qolo Abubakar taageertay iyo qolo Cali taageertay. waxaa jirtay oo ugu adkeyd iyadana soo kale khusuma siyaasiya, siyaasad ahaan iskhilaafkii wuxuu bilowday waagii Abubakar Sidiiq. qaar waxaa jiray kasoo horjeeday Abubakar oo arka maamulka in loo dhiibo Cali ibn Abi Talib. waxay bilaabeen axaadiis inay abuuraan oo lagu ammaanayo Cali ibn Abi Talib. qolyaha bakriyiintan waxay bilaabeen axaadiis oo lagu ammaanayo asxaabtii Abubakar iyo wixii la mid ahaa. waxay bilaabeen marka axaadiis in la kala aalifto. siyaasaddii way soo socotay marmarkii dambe way sii badanaysa dabcan. waxaa la gaaray casrigii yani qolyihii maaragtay umawiyiintii inay bilaabato in maaragtay يعني أحاديث أبو رشاك يعني أدبرتان أحاديث بي أبوران بمعنى مركز رسولك كأبورتان وي سداسوي مركز هالكا وحو كدري إن أصحابته أيه نمان بين أبورتا ويقو مركز أحاديث كالسمية مركز ما سدا أصحابته مش سدا ماها أين مركز وحوين كورمي دون waxaan ugu horeysiin doonaa cadaaladda guud ee saxaabada ayaan soo qaadan doonaa dhowr aayadood iyo waxa dhowr xadiis iyo dhowr qolo ahlu cilmiga ay leeyihiin oo saxaabadu ay kamid yihiin baan soo qaadan doonaa. kadibna si kooban baan asxaabta kale ee la weeraray wax uga odhan doonaa. asxaabta horta waa dhammaantood cuduulin weyn, dhammaantood waxa weeye waa cuduul weyn. arrintaas oo ka warran wuxuu yidhi khatiib al-Baghdadi fi kitaabi الكفاء عن علم الرواية يقول إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم. وحول أصحابتا
nebi maxamed cadaaladoodu ma sugan weeye oo la yaqaano yaa cadaaladooda sugay ma taqaana waa bitacdiili illahi lahu ilahi baa subxaanahu watacaala tacdiiliyey mar hadduu ilahi tacdiiliyena cid kale waxba loogama baahno wa ikhbaarihi iyo alla ka warrankiisa iyo can tahaaratihim inooga warramay hufanaantooda asxaabtu daahiriin bay ahaayeen yacni waxa markaa daahiran waa baatinan muuqa iyo waxweyaan saliya waxweyaan iyo waxweyaan gudaba saliya dibadba waxway markaa waxay ahaan dad daahiriina wa ikhtiyaari lahu iyo doorashadu isagu doortay ayuu ilaahi subxaanahu watacaala markaa ku tacdiiliyey sidaa sheekhu tilmaamaya cadaaladda saxaabadu dee kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala uu ka buuxdaa aayaadka qur-aankii haddaynu sunaano soo wada ururiya waqtiga aynala dheeraanaya annaguna waxaanu sheegnay in kelimaadkan soo ururnaanu doonayna waxaan soo qaadan doonaa daba aayaad tilmaamaya cadaaladda saxaabada ugu horreyn ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari watu'minuuna billah ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kuntum khayra umma waxaad tihiin ummaddii ugu khayrka badnayd oo dadka loo soo saaro marka haddaba kuntum khitaabkaas waa lisaxaabatu ibtidaan wuxuu bilow ahaanba ku dhacayaa saxaabadu ku dhacaya kuntum khitaabka meesha ku jira asxaabta rasuulka uga horreynaya oo soo gelay iyaguuba ku dhacayaaba marka haddaba waxa isweydiinta leh haddaynu ku soconno madhabka kishkii dad muftariina oo been abuuranaya sidee bay khayr umma ku noqdeen yacni wax marka waa cajiib wey aayadda labaad ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira wuxuu ilaahi subxaana watacaala yidhi waman yushaaqiq arasuula qofka rasuulka la dhinactama bimacnaa wax weeyaan khilaafa min bacdi maa tabayana lahu lhudaa intuu hanuunkuu caddaaday kadib rasuulka khilaafo oo garab mara wayatabic raaca gayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta dariiqooda midaan ahayn raaca nuwallihi maa tawalla waxaa la xidhiidhsiin doonaa baa layidhi amaynu la xidhiidhin wuxuu waxbay markaa weli ka dhigta wanuslihi jahannama ayaan gelin doonaa bu ilaahi subxaanahu watacala yidhi wasaa'at waxaan u xumaatay masiiran meel loo laabtana hiya jahannamaa xumaatay markaa waxa isweydiinta leh alla wuxuu leey wayatabic gayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta loo jeeda manhum waa asxaabta rasuulka wey iyagaa uga horreynaya cidda ka dambaysa dariiqu qaadaana way soo gudagelaysa marka haddaba waxa isweydiinta leh sidaanu ku sheegnayba aayadda qeybteeda dambe ilaahi subxaanahu watacala wuxuu kaga warramay ciribxumada dadka rasuulka khilaafa islamarkaana jidkii mu'miniintana garab mara uu leeyahay buu ilahi subxaana watacala kaga warramay marka waxaa isweydiinta leh dad waxba muftarin oo been abuuranaya oo iyagoo been kala abuuranaya dariiqoodan laga leexday ee la garab maray sababta wax markaa jahannama loogu tegayo waa cajiib wey aayadda saddexaad ilaahi subxaanahu watacala wuxuu yidhi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إلهي سبحانه وتعالى وحوله والسابقون كوي هرديري الأولون يهري من المهاجرين والأنصار وكم المهاجرين تي أنصارت والذين اتبعوهم كوي الراعي بإحسان وناكو الراعي رضي الله عنهم إلى سبحانه وتعالى رالك النقضي ورضوا عنه ينرها لبيك النقضين إلهي سبحانه وتعالى وأعد لهم جنات على وحود ديارية جنوي تجري يقول قليان تحتها وسط الأنهار وبياشا يقول قليان وبياشا قالق هاي إلهي سبحانه وتعالى في سورة محمد كشيري أي هوست أمريكا يقول قليان خالدين في أبدا حالة كواري ذلك الفوز العظيم كسوى الليبان وي مركا وحا يسويدين تله إلهي سبحانه وتعالى وتقول هاي رضي الله عنهم إلهي بارا لك النقضي سيدي بقى لو رأى لنا dad majruuxiina oo wax weyn markaa been kala abuurta oo suurada kishku soo dhigay nimanka maandan u dhigayaan sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raalkiga noqdo waa cajiib ayada waxa la mid ayada kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri fi surati al-fath laqad radiya Allahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhawaantii mu'miniinta raaligu ka noqday markay ku wali heshiinayeen geeda hoosteed marka waa shajaratu ridwaan wey bay'adii loo yaqaan bay'atu ridwaan ayadana waxay la mid tahay tii hore la mid Ilaahay wuxuu sheegay inuu raali ka yahay
وكرر للنقضي أصحاب الرسول رضي الله عنهم marka waxa isweydiinta leh dadka de noocaas oo cadaaladoodu aanay sugneen sidoo Ilaahay raali kaga noqday ayaa markaa isweydiin aayada shanaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri walladina aamanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillah walladina aawaw wa nasaru ulaa'ika humul mu'minuna haqqan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri walladina aamanu kuwi xaq rumay wa haajaru hijrooday oo wadankoodii beledkoodii iyo maalkoodiiba ka dhaqaajiyay markii waxay diintooda ay xor noqon waayeen oo lagu dhibaatay wajahadu fi sabilillah ilaahay dariiqiisana ku jihaatamay naftooda iyo maalkoodaba wax weeyaan ilaahay daraadii u huray iyo walladina aawu kuwii soo dhaweeyay wa nasar u gargaaray ulaa'ika humul mu'minuna haqqan wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwaasi waa mu'miniin dhabaway marka u fiirso hadhihi shahadatun min Allah wa markhaati ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ka ahaatay وهو أكبر شاهد مرخاتي هو إنه إلهي سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة marka hadaba dadka deesidayba muuminiin aba ku noqonaya dadka cadaaladoodu baanay sugnayn hadaynu ku socono madhabka kishkiye nimanka la midka isma qabanayaan aayadkan aanu sheegayno iyo waxna ay ku hadlayaan waa wax weeyaan kaafiye kala dheeri weey aayada lixaad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلهي سبحانه وتعالى وحمر خاتكيه هي وكمر خاتكعي أنه أن الحال والشان لا إله إلا هو لا معبود بحق له إن مد حق لقو عابده وسنجرين إساقم ويان والملائكة ملائكة ويكمر خاتكعين وأولو العلم ومحل شايك يددك وأولو العلم جينا ينوي كمر خاتكعين آيات الله سبحانه وتعالى مرخاتكي سقور ريسيي مرخاتكي ملائكة كحسيي markhaatiga ulul cilmiga iyo ku xisiyay marka ulul cilmiga maxalushaadku halkaas ulul cilmiga Ibn al-Qayyim tilmaamayo ee aayadan laga fahmayo waxa weeye waxa ugu horeeya asxaabta ugu horeeyay radiyallahu alayhi asxaabta marka ayaa ugu horeeyay marka hadaba waxa isweydiinta la dad majruuxiina waxaan ognahay cid markhaati la gashanayo cadaalad baa loo shardiyaa marka dad majruuxiina oo muftarin oo been abuuranaya sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawxiidkiisa markhaati uga dhigay ayaaba la yaaba sooma waa hadaynu ku socono madhabka khaldan iyo fikirka khaldan ay wax weyn nimankaasi ay faafinayaan la seema kishku faafinayo waa cajiib weey aayada lixaad toddobaad Ilaahay wuxuu leeyahay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون مركو الله سبحانه وتعالى كسو شيكي وحر أولئك هم الصادقون ومحل شيك كوا سوا كوا وحويان رون شيكي صادقين وي مبدأ ذا إيمان كوذا يدين توذا كرون شيكي الله سبحانه وتعالى أيضا حليه أولئك هم الصادقون وارون يالوي كشكنا وحليه يريمان ضنبا أولئك هم المفترون كوا سوا بين عليال مركو عجيب سيدا لسو كينيه أيها مركا وحيوة عجيبة آيات وحيوة سديدات قيبت آيات كانوا قدام بيسين دون وقوله جل وعلا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى كذلك سداس أن القبلة ذو حولي أيوان جعلناكم أمة وسطا إذا كان لقنا أمة حالة وسط كوحل الشيء وحويا muhimka ama wax weeyaan ayaa marka la yiraahdaa wasata marka ummad wasato khiyaara ayaa idinka dhignay Ilaahay subhanahu wa ta'ala lima litakunu shuhada ala nas dadka markhaati ugu noqota ummadda nabi maxamed umamkii ka horeeyay markhaati ay wax weey marka ku noqonayaan saxaadiista tilmaamayso marka maxsharka la yimaado ayaa wax weeyaan nabi nuux ayaa ummadiisa ay beenin doonta waxa la weydiin doonaa rasuulkaasi warka meedii soo gaarsiiyay risaaladii meedii soo gaarsiiyay bashir iyo nadiir meedii yimi sidaas marka lagu oranaya marka saran doonaga cid noo digto noo bishaaraysan nooma imanba wuxuu nabigu oran doonaa may waan gaarsiiyay yaa ku markhaati soo dhan ummadda wax nabi maxamed baa ay markhaatiya sumaarata marka dad majruuxiina si ay ummadda oo dhan markhaati ugu yihiin ugu noqonayaan ayaa wax marka la yaab leh ويكون الرسول عليكم شهيدا رسولكم دوشين ومرخاتي كل نقطة أي مركا إله سبحانه وتعالى مركا إنتها سوى آيات كتلمامية عدالة وحي مركا أصحاب 600 أمد المرة أي نود المرنية هدين وحنا آيات كسلوت تاجنو تفاسير تأهل العلم كلها منو إنتها سوى كلمة النقطة سبع
waxaynu sii raacsiin doonaa xadiisa rasuulka aayaadkaasaaba ku filan ba cadaaladooda laakiin wax weeye inagu daliilka wax weyn badinaynaa ayaanu wax weyn markaa axaadiistan usii raacin doonaa badin mayno 3 ama 2 xadiis ama 4 xadiis baynu wax weeye markaa raacin doonaa في صحيح مسلم وحاكو يمي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول كي ويري لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ولو في رسالة حديث سبحان الرسول كوري لا تصبوا أصحابي ولا أصحابتي لقى عينه في لقى ديننا فوالذي نفسي بيدي waxaan ku dhaartay Allah subhanahu wa ta'ala naftaydu gacantiisa ku jirtay hadii midkiin uu bixiyo buurta Uhud in laga dahaba buurta Uhud waa jabalun azim waa buur weyn ka rasuulku tusaaleynaya wuxuu la jeedaa un shay aad u far badan bixiya hadii midkiin uu bixiyo buurta Uhud in laga dahaba ma balaqa mudda ahadi gaari ma iyo marka mud wax baan koomba yaro wax way iyagu ay bixiyeen أحد أصحابته كمده إن يراي بحيان مركا قاري مايا ولا نصفه إسكبدا مدك بركي باني قارين بالرسول قدس صلى الله عليه وسلم مركا وحوية المامس فضلق إليه أي مركا تاسات المامس سيدا وكلا في صحيح مسلم وحاكو يمي وكسو رأي إن أبو بكر أبو سفيان وصوم رأي وحويا كمده فقراء دي وحويا مسلمين حكيم أن أبا سفيان مر على سلمان وسهيب وبلال هاي كم ذهين سلمان الفارسي يا سهيب يا بلال يا كوح كلو وبنا أصحابتي وحي مركا وحباي سنة أصحاب السفل ورنشري أيام مركا وحوية وصومري وحصواك مري يقوم الفدية وحصواك مري أبو سفيان فلما رأوا قالوا والله ما أخذ السيوف الله من عدو لا ما أخذها مركا أركين بين كلمة دايلة وحنا ولا سيفت إلهي سبحانه وتعالى عدو إلهي ولي سيدي للرمي وما يقبل ما دام ولي كان وهل كان برمرة ولي سيفت وحباو من بين هذين وسيدي للرمي وما يهول قليل فسمعه أبو بكر الصديق بهذا الكذي مقلي فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم وواحد أذكرنا يسان كان هذا كان يقول يدين قريش شيخ كودي يوحيان سيد كودي لشيخ قريش وسيدي شيخ كلمة الشيخ اللغة العربية وحل هذا من طعن في السن قفك الداء الدرة ووحين إن مدان ولا أفرط ميلاك جاره أي مركال هذا الشيخ اللي مكداية وحين مدة يقانان مصطلح النقضي قفك دين تسلانك وحكي يقانه ولميت هذا السحابي الكواسيس وقفك الداء جاره إلا أفرط ميلاك جاره يا شيخ لهذا ولذلك وكي شاعرك لها وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40 تبعتنا انت سويري أبو بكر الصديق الأكبر ثم انطلق الصديق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وبما قالوا تبعتنا أبو بكر بعد غاتشي رسولك تجي صلى الله عليه وسلم وحنا أشياء وركي يوحي يسوي يجكوري يوحي يجكوري هذين أي الرسول كورمي هلاك وحويا نفرصة ماشان دون نه تبعتنا مركو سدايري أي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر بوجي وقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم أبو بكر ما لغا يابا لمن كسنة كعلي سيسي فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل إلى يبان كبارته هدي أن مكا كعلي سيسو خبي قامت كعليس وحتى مركاية المامسة لمن إلهي سبحانه وتعالى مركا يجا لغا علي سيسو أنا عرونه قيمها أي مهمة إليه بمركا تاساية المامسة كواحي سوى الدين تله دد مجروحين oo beenala yaala sidoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga xanaaqay markii iyaga la taabsiyo ka waa cajiib marka asxaabtu hadii wax la falgaadeeyo iyo hadii wax la dhibaatayaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xanaaqay nimanka falgaadeynaya waxa ku socotay Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadadiis hadana ka soo laabana cadib xumadeeda ayaabay la kulmi doonaan sidoo kale fi sahihayn waxa ku yimi min xadiisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu أيا رسولك ما رسولك وحولي أن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرني وقف عنواء وحويا قرني ينقول رسولك خير الناس تكوكو خير كمان وقرني وي ثم الذين يلونهم كوكو حقا هدنا ثم الذين يلونهم هدنا كوكو سيحقا وأصحابتي تابعينتي تابعينتي وي سيدا سمرك الله كلا خير بدنانيا
wuxuu rasuulku tilmaameen asxaabtiyiin ummadda tiigu khayrka badnayd. wa fi saxiixayni sidoo kale waxaa haddana saxiixaynka ku yimi min xadiidi anas bin malik. xadiiskana waxaa soo wariye anas bin malik laftigiisa insha allahu tacala mar baynu ka hadli doonaayo asxaabta ay beegsadeen oo ay dureen ayaabuu ka midi. waxay yidhahdeen ina yar buu ahaayo yacni wax markaa wax isku khaldi karo oo sidaasay markaa yidhaahdeen. oo kishki laftigiisa isagoo waxayaan kasoo naqlinaya macallinkiisu wax kasoo koobiyeyo cadnaan ibraahim ilaan kishki wixiisu waa koobi. arrintaasina waa caddaatay. ummad badan baa yaabtay markuu sheekh shiblu lahaa waa koobi ambast ayaa dad fara badan ay shakiyeen. laakiin markii waxweyn ay daawadeen kiliibka uu diyaariyay walaalkeen xuseen daaci show oo ummadda waxaan kula talinayo inay dhegaystaan ay daawadaan dee wax walbaa kuwa caddaanaya. halkaasay kasoo koobeeyaan tuumbadan xune wasakda ay waxweyn buufinayaan ba halkaasay kasoo nuugaan. halkaas ayay markaa kasoo nuugaan. isagoo ninka kasoo waxweyn naqlinaya ayaa waxweyn aad iyo aad markaa ayuu u aflagaadeeyeen saxaabigii qiimaha badnaa anas bin malik loolan jiray khaadimka rasuulka ahaa muddo badan waxuu la shaqaynayay. markaa wuxuu leeyahy jalasa asaxaaba maca rasuuli lah sal lla alay slm. asxaabtii baa meel bay fadhiiseen iyagoo rasuulkuna uu la jiro. wa fii hada almajlisi mara annaasu bijanaas. iyagoo halkii fadhiya ayaa dad baa waxay meeshii ay soo mariyeen oo ay la soo mareen janaasad ayay markaa ay la soo mareen. fa ahnaw calayha khayraa khayr bay ku sheegeen. ahna asaxaabatu calaa saaxibi ljanaasa. qofkii dee janaasada lagu waday ayaabay khayr ku ahlulkhayr buu ahaa caynkaasay yidhahdeen. faqaala almustafa sal alla alay wasalam wuxuu rasuulku yihi wajabat way waajibtay. haddana iyagoo halkii fadhiya ayaa tu kale la soo mariyay fii nafsi lmajlis. iyagoo halkii fadhiya oon ka kicin ayaa janaaso kale meeshii lala soo mariyey. fa ahnaw calayha sharaa shar bay ku sheegeen oo qofkan dambee lawda meydkani inuu wax weeyaan qof shar badan ahaa bay sheegeen. wuxuu rasuulku yihi wajabat way waajibtay. cumar bn alkhadaab radia allahu canhu ardaah oo ka mid ahaa dadkii majliska fadhiyay ayaa wuxuu yihi maa wajabat yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maxaa waajibay. ila adiga yidhi wajabad maxaa waajib bal waxaan waajibay noo sheeg. qaala wuxuu yihi aluulaa ahnaytum calayha khayra. tii hore khayr baad ku sheegteen fawajabat laha aljanna jannadii baa waxay markaa u waajibay. wathaaniya ahnaytum calayha sharan. ta labaadna shar baad ku sheegteen fawajabat laha annaar naar baa markaa u waajibtay. antum shuhadaau llahi fi lardi. waa maxalu shaahidkan xadiiska uga dalleen oo rasuulkan antum idinku shuhadaau llahi ilahay markhaatigiisi baa tihiin fi lardi dhulka dhexdiisa ah. ilahay baad waxay markaad markhaatiga ilahay dhulka jooga ayaad markaa tihiin u rasuulku sal ly. markaa soo maartaan waa taskiya iyo wax weeyaan taskiye weyn oo rasuulka asxaabtiisii isagoon kala qaadin biduuni istithnaa ayuu rasuulku taskiyadeeyey. taskiye waxway markaa ka weyni ma jirto. markaa asxaabta dhanee wax weeye ilaahi subxaanahu watacala markhaatigiisa ah baa maanta lagu tumanaya laleeyahay waa caynka axaadiis bay kala abuuranayaan. waa war la yaaba wey. cabdullahi bni mascuud ayaa wuxuu yidhi man kaana mustannan falyastanna biman qad maat. intaa hore waxaanu kaga soo gudbaynaa aayaadkii iyo dhowrka xadiis. bal aqwaasha ahlulcilmi oo asxaabtu ay ugu horreeyaan oo weliba ibnu mascuud aynu kasoo qaadan doono ayaynu markaa wax weyaan sii raacin doonaa si aynu qaybtan hore aynu soo gebagabayno waayo ma jecelin hadalku nala dheeraado. ibnu mascuud baa wuxuu yidhi oo ka mid ahaa min kibaar asaxaaba min culamaai asaxaaba. asxaabtii waa weyneed buu ka mid ahaa ibnu mascuud min asaabiqiin alawaliin ayuu ka mid ahaa. wuxuu yihi man kaana mustannan falyastanna biman qad maat. war midkan cid ku dayanaya oo dariiqooda maraya dadkii dhinta dariiqooda ha maro. asxaabtu ula jeedaan. fa ina alxaya laa tu'manu calayhi lfitna. maxaa yeelay ruuxa nool fitno ayaa looga aamin noqonaynin oo fitna markaa imanaysa diintiisa markaa fitna ay gelaysaa. dee waxa waa sidaas waba waxaa wax xilligan u asxaabigu sheegay waqtigiisa dee maanta maxaad u malayn oo fitnadii wax weyaan aad iyo aad u badatay. ulaa'ika asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam. kaasi waa asxaabtii wax weya nebi maxamed wey. kaanuu afdala hadihi lumma abaraha. waxay ahaan ummaddan wax weeye tii ugu fadliga badnayd ayay marka ahaayeen. kaanuu afdal hadihi lumma ummaddan kuwii ugu fadliga badnaa ayay marka ahaayeen. abarahaa quluuban xagga qalbi ahaana ugu baarirsanaa ayay marka ahaayeen. wa acmaqahaa cilman xagga cilmi ahaana yacni waxaan ugu cilmi badnaa bay ahaayeen oo cilmigooda cilmi gunti dheer ayuu markaa sal dheer buu ahaa. cilmi iska dulka xaadhin oo la dul cararay ma aha. wa aqalahaa takallufan kuwa ugu yaran weeye xagga takallufka. takallufka waxa la dhaha qofkii waxaanu dee ismashaqeeya ayaa markaa takalluf yidhahda. marka ayagu takallufna may lahayn. ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiy. ilaah baa subxaanahu watacaala u doortay
waxa weeyaan nebigiisa inay la rafiiqaan waliiqaamati diintiisa oogitaankii ilaahi subxaanahu watacala u doortay facrifuu lahum fadlahum waxaad u garataan oo u ictiraaftaan fadligooda u garta wey wattabicuuhum calaa aahaarihim waxaad raacdaan raadkoodii raaca leanna raadkoodoo la raacay khayr baa ku jira watamasakuu bima istatactum min akhlaaqihim wa siyarihim waxaad qabsataan oad ku dhegtaan intii aad awoodaan ilaan kolleyba wax wayaan ma keeni karayno inaan asxaabta hadyigoodii iyo akhlaaqoodii iyo zuhdigoodii cibaadooyinkoodii kala duwanaa inaanu sidoodii aan wax wayaan samaynaa aad bay u adagta marka wuxuu saxaabigu leey bima istatactum wixii aad kartaan oo min akhlaaqihim wa siyarihim fa innahum kaanuu cala alhuda almustaqiim maxaa yeelay hanuun toosan bay ku dul sugnaayeen sidaas weeye ibn mascuud mar kale wuxuu leeyahy in allaha tacaala nadara fii quluubi alcibaad ilaahi subxaanahu watacala wuxuu eegay uu fiiriyey addoommada quluubtoodii fawajada qalba muxammadin khayra quluubi alcibaad wuxuu ilaahi subxaanahu watacala ogaaday in qalbiga nebi maxamed uu yahay qalbiga ugu wax weeyaan khayrka badan faاstafaahu lirisaalatihi wa nubuwatihi dabeetna ilaahi subxaanahu watacala wuxuu u doortay risaaladiisii fariintiisii ayuu markaa ilaahi subxaanahu watacaala u doortay wanadara fii quluubi alcibaad haddana wuxuu ilaahi subxaanahu watacaala eegay addoommada quluubtoodii fawajada qalba asxaabihi khayra quluubi alcibaad wuxuu ilaahi subxaanahu watacala ogaaday in quluubta asxaabta nebi maxamed ay yihiin ta wax wayaan ugu khayrka badan fajacalahum wasaara'a nebiyi wuxuuna ka yeelay wasiiradii iyo wax weeyaan gacanyarayaashii waxay markaa nebigiisii yuqaatiluuna calaa diinihi imaam axmed baa fii musnadi ka warinaya bisanadin xasanin buu ka warinayaa sidaas weeye imaamkii weynaa imaam malik bin anas imaamu daaru lhijra ayaa waxaa loo sheegay nin asxaabta rasuulka wax ka sheegaya ayaa markaa loo sheegay dabeetana imaamku faqara malik binu anas raximahu llah qowla allahi tacaala qowlka ilaahay ayuu markaa wax weeye akhriyey muxamadu rasuulu llah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار محل شاهدك والكه ليغيظ بهم الكفار ثم قال وحوري فمن وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب هذه الآية وحوري قف كستا من ألفاظ العموم والشمول قف كستو قلبيسا على وحويان وهي وعلى كدرمو على سيمت كمن أصحاب الرسول أصحابته دب ما هذا واحد منهم هدي هذا وحين قلبي هذا حمانية وحماض وقاضه ها ده وحين خطروي وحين أمريكا قف كستو qalbigiisa qaydii cadho u geliya mid ka mid asxaabta rasuulka ayadan baa siibta haysata ayadu maxay sheegaysa liyaqiida bihim alkufaar baa laga cadhaysiinaya markaa dadka asxaabta nacaya iflagaadeynaya hee yani wax markaa halkaa far baa ku gudan wey qaala alxaafid alkabiir abu zurca raximah llah isna wuxuu yidhi idaa ra'ayta arajula yantaqisu axada min asxaabi nebi sal alla alay wasalam faclam annahu zindiiqun waxaad ogaataa weli haddii aad aragto nin dumarkuna way soo gelayaane asxaabta rasuulka ceebeynaya oo wax ka sheegaya cadaaladooda wax dhaawacaya ka sheegaya haddaad aragto waxaad ogaataa weli faclam annahu sindiiq waa munaafiq weeye oo isku dhex qarinaya waa munaafiq isku dhex qarinaya wax weeye markaas qarinaya islaamka isku qarinaya wey maxaa yeelay rasuulku waa xaq wey laa shaka qur-aankuna waa xaq wey wuxuu rasuulku la yimi oo dhanna waa xaq wey xaqaana ciddana soo gaadhsiisay waa kuwama waa asxaabta rasuulka weeye ridwan allah calayh alkifaaya min cilmi riwaaya ayuu markaa wax weyn ku yaallaa imaam aلطaxaawi wuxuu yihi kitaabkiisana caqiida طaxaawiya wanuxibu asxaaba الrasuul waxaanu jecelnahay asxaabta rasuulka walaa nufridu fii xubi axadi minhum kuna xadgudbi mayno jacaylka mid iyaga ka mid ah bimacnaa waanu jeclaanana laakiin jaceylkaasi keeni maayo inaan xadgudubno oo xadkii loogu talagalay baynu ka sarraysiino markaa wax weeye taa yeeli mayno weli oo wax baan samayn mayno wanubqidu man abqadahum qofka asxaabta nacana wa nacayna ruuxa muuminkaa sidaasaa laga doonaya walow miyuu noqda kaa la dhalatay ka ku dhalayba qofka mar hadduu asxaabta rasuulku la coloobo asxaabta rasuulka uu nacayo adiguna iska nac isku reer baanu nahay iyo
isku xisbi aynu nahay danaa naga dhaxeeya shaqeymayso haddii aad muumin dhaba tahay qofkani sooma asxaabta rasuulka soomuu caayin soomuu nabadgelin waayin soomuu nicin aduguna iska nac wa bigayri alxaqi yadkuru waxaan xaq ahayna ka sheegaya maxaa yeelay fa xubuhum diinu jaceylkoodu waa diin wey wa iimaanu waa ixsaan waa iimaan iyo ixsaan wey wa bugduhum kufrun wa nifaaqun wa tuqyaan wa bugduhum nacaybkooda in asxaabta la naco kufrun gaalnimo wey wa nifaaqun nifaaq wey iyo wa tuqyaanun xadgudub ayaa markaa ay noqonaysa intaa waxaynu kaga tegaynaa qaybtaa koowaad muqadimadaas ka caamka ah oo ku saabsan cadaaladda asxaabta waxaan si kooban insha allahu tacaala si aan waqtigu nagu dheeraan aan ka warrami doonaa mid ka mid a asxaabta muxuua rasuulku si gooniya loo beegsaday abu hureyre iyo waxweyn mucaawiya ka mid a ragga aadka waxba loo weeraro saana soo tilmaanay abu hureyra sheekh mukhtaar baa insha allahu tacaala ka warrami doona mucaawiya ayaa aad iyo aad markaa waxay u weerareen maanta dhowr jeer falaaro aad ugu dhiftay falaar kalena maanta iga sii qaata xadiis agteen anaga caamka ah oo ah yahuudda waxay u kala baxday 12 firqo masiixiyiinta waxay u kala baxday 27 firqo ummadeedana waxay u kala baxaysaa 73 firqo kulligoodana naartay galaysaa intaan ka hal maxay yihiin aniga asxaabta waxa ku taagan xadiiskaas bukhari muslim soo warinay yani imaam ibn hazm إمام علامة بن وزير حكوليهن لعله حلقة من دسائس الملحدين ملحدين تنا ناصر سكريا وحكار إيمانا آية القرآن كأهد وكنتم خير أمة أخرجت للناس أمة أو خير بدت كلاص صارياتهن لكن أمة هذا ينخد كو كشر بدن يهودي مثلا مسيحيين يهودي لا تضواتن لا يتضواتن يكون تضواتن أنا تضواتن يسدح عن نخرة هل كلية جنة جليس وهل حديث كما كيا لقى صوري حلقة صوري معاوية بن أبي سفيان سياسة أروي تضوء إزداد الوطن طرق كل وحكسوا بيشوانا معاوية بن أبي سفيان مركو أوغاني أنا قلت أنا وحوض تاسو ينتهي فعلك يا أصحابته وحي كلمة أهل النار إلا يحد وأركيسا علماء وين لقلت الماما دقي سنة يا شيخ ليري كورن أشعرية ذي ما تريدي ذي كواسون وحكولي وحكميدين تضواتني إلا وذا فرقه يعني فرقة كلتي بالبعد السجد تيسويها waxa kalena 70 labada farqi kamid ah naarta galay waa first aid baa la yiraahdaa gargaarka koowaad weey gargaarka dhameyska tiran oo wax weeyaan aad u balbalaadan dib insha Allah taala hadii la yiraahdo wax weeyaan soo deyn doona Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu kana min khiyar as-sahabati xukamada asxaabta rasuulka kuwii ugu wax weeyaan hal doorka ayuu kamid ahaa وهو سهر رسول الله wuxuu ahaa rasuulka Ilaahay xididkiibu ahaa rasuulka Ilaahay أي مركز الله حدد أبو هريرة يا واحد نجد معاوية لأنه واحد معاوية حوض الشين أم حبيبة بنت سفيان بنت أبي سفيان بيوض الشين أم حبيبة أنا واحد كم إذا أزواج الرسول رسولك قرسي مركز رسولك حدد بالله مؤمنين تنا وقت كسوي شو مال كسوي شو جنبا وأبتجوا دوي تذكر على أبتجوا احترام ترينه لكن هذا كون حتى أبتجود وحنا كحشوم مايا أبتجود بقى في القعدين أو صحابية واي وكان من كتاب الوحي يحو كم ذها تذكر رسول الوحي جو قري شري أصحابتي فركترس كذا فرت تقان أيام كشري مركا وحي أيام مركا رسول قري شري وكان من علماء الصحابة وحو كم ذا أصحابته الرجع علم قبل الله وأذكياء الدنيا يدذكي وحويان مسكح بدنا الله سبحانه وتعالى مسكح السيئي intelligent بوا أي كويك سأدو سري لكن مركا واحد هو صحابي يعني من كتاب الوحي وكم ضاع الرجل وحي قري جري مركا واحد يسوي الدين تره سدو وحويان رسولك وحي جوجوا مني نين وحيان بين الله رسولك وحويان حديث قصة سنة وإنت وحويان حتى دي إلى ذان والرسولك وهو سمر كرتا منافقين بابا ده كقرصونين وحلوني إلى ما كقرصونان كرتا إلى وحي بعد دقي وكانوا من منافق وحي بيسوي دارنا إلى بابا قبل الله صم وحي بقى قبل الله عجيب أن أثنى عليه النبي صلى الله عليه أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه ودينه رسول كان معني أن نقن كيس دينتي سبا وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بولايته أن حلك ومسلمين توقبتنا أنت قوانين بقى يور رسولك وجسي بشاريي كتاب الله سبحانه وتعالى يسنة الرسول كإجماع مدنا أرنتها ويتسنع صحابي قيمة بضناء وحوي ولي كمل أهل البيت
عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن مفسر هذه الأمة حبر الأمة أيا وحولي آيات كميدة وحي القرآن كأي وحو دليشدي إن تلمام يسو الله المستعان حلك وحويا معاوية أي شارس من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا آيات داس وحويا استنباطي أصحابتنا وحويا سنة المام دانو اسكو وافقين با وحوي heshiiska wixii ka dambeeyay sidaas way marka sidaas way heshiiskii dhex maray isaga iyo Xasan bin Ali khilaafadiisuna khilaafo lagu barwaaqoobay ayay marka ahayd marka iyagoo heshiiskaas u dhaca kadib ayaa la bilaabay in fariidatul jihaad dib loo bilaabo khayr badan baa marka dhacay 20 ka wahayay islaamku si fiican marka wax weyn u fiday cadaaladana uu ku dadaalay sidaas way waxaan soo tilmaamay nabigu waxaanu amaanay arintaasina waxay dhacday markii gabadhii loo jeeray Faatimo bint Qays la soo furay oo cid baxday waatii rasuulka u timid oo kala tashanaysa arrimaha guurka waxaan rasuulku sheegtay in laba nin ay soo dooneen Abu Jahm iyo Muawiya wuxuu ku tilmaamay Abu Jahm inuu yahay nin waxay marka u shiisa baan garabkiisa ka dhigin Muawiya wuxuu li fasuuluuk waa nin aan maal haysanin marka halka wuxuu rasuulku tilmaamay waxa ugu waxay badan rasuulka sheegay waxa fasauluuk buuli waxa laantuna waxay la isku macaabeeyo oo naqsina ma noqoto ilaa barsaaqada balaariya laakiin sidiisa kale rasuulku diintiisa akhlaaqdiisa waxa kama sheegay marka waa amaan weey waxaan soo tilmaanay oo min culimaa saxaaba bila rayb shakalan wuxuu kamid ah asxaabtii waxaan ugu cilmiga badnaa ayuu ku jiray Fudail bin Iyad baa wuxuu leeyahay rahimahullah awthaqu amali fi nafsi amalka waxaan ugu kalsooni badan naftayda wuxuu leeyahay hubba Abi Bakr wa Umar وعبيدة بن جراح وجعل كان جعل أبو بكر يا عمر يا أبو عبيدة وحبي أصحاب محمد عليه السلام يجعل كأصحاب تنبي محمد وحوي مركان وحوي مركان شعر يقولي جميعا لما أنت وكان يترحم على معاوية وحويا ورنجري إلهه نحرسته ويقول ورنجري كان من علماء وكان من العلماء ده من أصحاب محمد نحو كمدها تذكي وحقرت كأنه محمد وحويا أصحاب السكمدها وقت يقول قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله سنه وحولي الاستيعاب وحويا وحو كوت المامية كتاب كيس الله يقال الاستيعاب يا وحوليه روى عنه من الصحابة طائف وحا معاوية وحكوري جماعة وحي مركز أصحابتها وجماعة من التابعين يكوحدون التابعين بالحجاز والشام والعراق حجاز الشام العراق والجوري العلامة محمد بن إبراهيم الوزير سنه وحو تلمام كتاب كيس الروض الباسم في الذب عن سنة بالقاسم يوحي روى عن معاوية رضي الله عنه غير واحد من أعيان الصحابة أصحاب ذنبا كوريسي يقولي وقت يقول أيام مركا كوريسي يتابعين با كعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين تابعين تنا سعيد بن المسيب با كميدا أبي صالح الصمان أبي دريس الخولاني يا أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله ومحمد بن سليم وخلق كثير يا خلقي فربضا يا وحكوري حافظ بن حجر رحمه الله وحكت مع الإصابة في تمييز الصحابة وحليه وقد روى معاوية رضي الله عنه أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأخته وحكوري أبو بكر عمر عثمان والعشي وروى عنه سنة وحكوري من صحابة بن عباس هو جرير بن عبد الله البجلي معاوية بن خديج صايب بن يزيد وعبد الله بن الزبير نعمان بن بشير يا أصحابك لا يا وحي مركا وحكوري أما التابعين يقى فحدث عن ولا حرج وقت نقويره يقى آد بين مركا وحي أوفر بدين معاوية رضي الله عنه سنة صوت المانين خير بضم بمركاها خلافتي سناسي في عمو مركا وقتي سوحي مركا عدالة يكون مادة سلام كون معاملي أيو مركا وحي كون معاملي خاتمتي سنة رنتي آد بين مركا أوفي عنيد وحيابا يكون دران وحوية إنه الخير لواها بيكون درانو أبيبا وحيا رسولك لا دقالميو isaguna cali uu la dagaalamayo waxyaabo noocaas markaa tilmaamaan taasina waxba kama jira waa shubahaad weeye aan waxba ka jirin laana islaam yajibu ma qabla islaamku wuxuu dumiyaa wixii ka horeeyay khalaas weey marka waxa la eegayaa waqtiga igu yar daraadii baan wax inuu dul cararayay waxa la eegayaa al-ibratu bil khawatim qofka khaatimidiisa la eegayaa maata cala al-islaam islaamnimo ku dhintay waxa markaa muawiya sidaas weey khaatimadun baa la eegayaa al-ibratu bi kamal an-nihaya لا بنقص البداية سلاسوية وحين نقص جد بدنا يدا وقت نقول يري عبد الله بن السلام يا وهب منبه يا كعب بن الأحبار وواحد بين سئية جنو آدي أدوى في الجديد علماء بن إسرائيل بقى هاين
afkaar liidata islaamka la soo galeen niman diinta waxaan taxriifi ahayn tiibay waxay diinta la soo galeen cabdullaahi bin salaam waxay sameeyaan waxaa arkaysaa مثلا معاوية بن أبي سفيان markuu yimid mawqacata Siffin khudbada koowaad oo khudbeynaya wuxuu yiri ilaahay awoodsa ayaan ku nimid وجئنا على قدر كما قال الله موسى ثم جئت على قدر يا موسى هذا يسود الشيء ويلكيسا يزيد ابن معاوية مركو حكم خطبه ugu horeysa khudbay wuxuu yiri سبحان الذي ما شاء صنع من شاء رفع ومن شاء وضع من شاء منح ومن شاء منع waxaa doorsan ilaahay wixii doon sameynay cid doon kor ay u qaada cid doon hoos ay u dhigaa cid doon maamul ay u siiyaa cid doon maamulku karayo خلاص kulligiin waxa anaga dadka waxa laga buuxinaya kulli inay maskaxdooda ay ku qarcaan waxa lagu socdaa qadarka ilaahay ayaa ma aragtay wax dambi lagu gala qadarka ilaahay ayaa lagu hanuunaa qadarka ilaahay ayaa jannada lagu gala tii marka waxa bilaabatay dhibku kala yimid waxa kamid ahaa dad badan oo ahlu kitaab ahaa ayaa soo muslimeen oo yahuud ah كعب بن الأحبار يا سلام مسلم كهر واجد النبي قال روح صوم مسلم عبد الله بن السلام يهودي أيها كعب بن الأحبار يا سلام مسلم وحصام مسلمي وهب بن منبه وحصام مسلمي ولادك سهمان بن منبه وحصام مسلمي غيلان بن منبه وحصام مسلمي معقل بن منبه وحصام مسلمي أبو سماوع كل جودنا وحياها يعني ضد حنبارسن علمي انحراف كاها ابن إسرائيل يعني إلهي القرآن كحنا وشاقي وحياها أي حنباسيين يعني إني خلطيين ومنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب اللي تحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكريم إلى القرآن وشاقي هذا كي ورجنا عليه كتاب كي كجرا كتاب كنح بجرا معه يعني إلهي نكون بين أورنا يعني بين أورسي وحد نصاق عليه I know maanta iyo duruusta qaar soo socdo marka qaarna yani wax falaara oo tuuri doon waxyaabo ah caqiidooyinkooda han noqoto khalqigan ugu horeyso iyo han noqoto aakhira tan aakhira mesela waxyaabo qaar aan soo qaato waxa ku nimid qadariyiinti yani waxa leeyahay mesela xadiis waxa jira saxiixanka ku jira oo leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala khalqigu markuu abuuray wuxuu ka abuuray mugdi خلق الله الخلق في ظلمة ثم أرسل فيه نور أي صدري حديث كل رواية معنا رش فيه نور أي كفر كي نور كاس أصيبي وهنون يعني كي نور كان سوق قارن ودو سلامة يعني هذا كان هذا شيء ما ضاع صما نور كدوك سوق قارن وهنونتي هذا سوق قارن يعني حقونا ويمت روايات كثير نوزين ما لا صنع سوق قارن كتب تاني السياحة ويسوق قارن حكم من كبار الصحابة له ما لهم حكم من أصحابتي وبنيده وحوي رسول كمدها فضايش أصحاب السوشيال نبي مركا أولي هاي بلو حكم من الرجع وحوي ودون كتشوجة شنو وحوي لو جوب الشارع يا أبو كمدي هاي مركا وحوي صحيح البخاري جنوا وقول لابن كرتان بلا وجباء فضائل الصحابة يك والرمية السلامين ومكدنت أما وهب بن أبي استجنا من خيار التابعين بكمدها ذاتك لو كل صنع وكمدها عد وحكش الدين تصدرتي ما جرت oo tilmaamay inuu wadaac yahay ama wax weeyaan dastaas inuu yahay waxaan xadiista wax weeyaan mudallisa ila Abu Rayh oo qoladan ay ka soo wariyeen mooyaan Ka'b bin al-Ahbarna isaguna soo kale wuxuu kamid ahaa min at-tabi'in buu kamid ahaa culimada jarh wa ta'dilna waxba wax weeyaan kuma tuhmin inuu xadiis waxaan uu sameeysto iyo waxa lagu tuhmin waxa loo badan inuu wax weeyaan thiqa yahay ay markaa u badan yihiin sidaas weeye waxaana wax weeyaan tarjuma u sameeyay muxuu tarjuma ayaa wax weeyaan markaa لو سميي تصالح الذهبي في تذكر الحفاظ وحسبان وسميي ترجمة كوبان ابن عساكر باسون وسمينا تاريخ دمشق أبو نعيم في الحلية ابن حجر في الإصابة والتهذيب لبضبا يسوون وحويا وسمينية مركا يسوون وحويا ثقاب مركاها ميدو حين حديث سميي أما بين أبوره مركا يسوون مؤهين ولذلك كهل ميس كتب الضعفاء والمتروكين تذكر الضعفاء ما أحاديث سميي كتبته ذا وحويا kuma jiro isaguna marka wax waa sidaas weeye ilaa waxaanu ka barayeen inuu khayrka nawaafajiyo kalimaadkana kulli wax weeyaan waa san soo tilmaanay waa dhaawac joojin weeye dib insha Allah ta'ala soo duubi doona kuwa inta ka dhaadheer wabillahi tawfiiq subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk